kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan si walba maqalkeenu idin soo gaarayo halkan waa YouTube channelkeena fadlan taabo calaamada subscribe-ta si aad u noqotid daawadaha kuwaad mar walba hela muuqaaladan bartan soo geliyo muuqaalkan la garee Daahir Cali Sow oo ah shakhsi caan ka ah baraha bulshada ayaa weerar ciri dhulha ku qaaday fanaanka da'da yar ee Sharma Boy weerarkaas ayuu ku bartilmaameystay YouTube channelkii uu lahaa Sharma Boy ugu dambeyntiina hawada laga saaray muuqaalkan ayaan ku falanqeyn doonaa halkuu ka bilowday dagaalka Daahir iyo Sharma Boy iyo wuxuu galabsaday fanaanka balse waxaan ka codsanayaa in muuqaalkan la gelisid Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy dagaalkooda wuxuu soo bilowday bishii barakeysneed ee Ramadaan xilligaas oo Daahir fariin hanjabaad u soo diray fanaanka Sharma Boy iyo fanaanada la yiraahdo Xamdi Bilan fariintaas ayaa ahayd haddii ay ka qayb galaan showga Ismaaciil Aarka looga soo horjeedo ee ka dhici doona Muqdisho habeenkii ciidda ay dhigan doonaan fanaaniinta kale ah Axmed Aarshiin Najm Rashaad in uu labadan fanaan dhibaato weyn gaarsiin doono laakiin dad fara badan ayaa waxay isdhehayeen hadalkaas ka soo yeeray Daahir Cali Sow waa mid boota ah oo waxba tiri doonin laakiin maxaa dhacay Daahir Cali Sow ayaa fariin galabta ku soo baahiyay bartiisa Facebook waxaana uu sheegay in saacadaha soo socda la arki doono wax la yaab leh dad fara badan ayaa isweydiiyay arintaas balse Daahir wuxuu sheegay in fanaanka da'da yar ee Sharma Boy baqbaqdiisa iyo warkiisa u batay waa sida uu Daahir sheegay waxaana uu sheegay in uu saacadaha soo socda wax la yaab la arki doono ugu dambeyntii bartii YouTube-ku uu lahaa fanaanka da'da yar ee Sharma Boy ayaa hawada lagu xiray waxaana laga saaray dhammaan muuqaaladii ku jira bartaasi dad fara badan ayaa waxay leeyihiin muuqaaladii bartaas ku jira ee Sharma Boy uu lahaa profile asaga ka dhigay sidaas ayayna YouTube-ku ugu jiraan laakiin YouTube-ka marka la sirjir gareeyo oo Sharma Boy lagu qoro ma soo saariyo sababta ma naqaan anaga laakiin waxaan xaqiijin karnaa in Daahir Cali Sow uu falkaasi kula kacay fanaanka da'da yar ee Sharma Boy xurguf iyo dagaal labadooda ka dhaxaysan ee arintan keentay haddaba halku ka soo bilowday dagaalka Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy Muqdisho bishii barakeysneed ee Ramadaan waxaa laga qayb qaabilay laba show ay dhiganayaan Ismaaciil Aarka iyo team uu wato teamka Ismaaciil Aarka waxaa ka mid ahaa Dayaxdal Nuur Shaadi Sharif Iftaax Yar iyo fanaaniin kale halka teamka labaad ee showga Muqdisho kaga dhawaaqay ee haayeen Najm Rashaad iyo Axmed Aarshe oo showga u dhajisanaa iyo sidoo kale fanaaniin kale oo ka qayb galaysay showgaasi oo ka mid ahaayeen Sakariye Kubciye Khalid Kaamil iyo fanaaniin kale oo aad u fara badan Sharma Boy ayaa wuxuu go'aansaday xilligaasi inuu ka qayb galo showga Axmed Aarshe iyo Najm Rashaad laakiinse markuu go'aansaday fanaankaas inuu ka qayb galo showgaas ayaa baraha bulshada waxaa ka bilowday dagaal iyo weerar lagu soo qaaday fanaankaasi iyo sababta uu uga qayb gali waayay showga Ismaaciil Aarka haddaba maxaa dhacay intaas kadib markuu fanaankan go'aansaday inuu ka qayb galo showga Axmed Aarshe Daahir Cali Sow ayaa fariin hanjabaad u soo diray fanaaniinta kale ah Sharma Boy iyo Xamdi Bilan waxaana hanjabaadaasi iyo fariintaasi ahayd haddii ay ka qayb galaan showga Ismaaciil Aarka looga soo horjeedo ay dhiganayaan fanaaniinta kale ah Axmed Aarshiin Najm Rashaad haddii ay ka qayb galaan dhibaatada soo gaarta Sharma Boy iyo Xamdi Bilan in ayaga lagu wada ku doonteen fariintaas ay dad fara badan baraha bulshada ay ku arkeen laakiin waxay u qaateen inay tahay iska fariin hanjabaad oo boota ah maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa ka bilowday dhalinyaro muuqaalo soo sameeynayay oo ku maadeysanaya Daahir Cali Sow ayagoo sheegay in muuqaaladii baraha bulshada uu ku faafiyay hanjabaad ahayd inay ahayd booto laakiin maanta ayuu Facebook-giisa ku soo baahiyay qoraal uu ku sheegay in saacadaha soo socda war weyn la arki doono warkaasna wuxuu sheegay in Sharma Boy uu ku socdo laakiin maxaa dhacay caawa waxaa soo baxay war sheegaya in Sharma Boy YouTube-kiisa hawada lagu cunay markii barta YouTube-ka la galo ee lagu qoro Sharma Boy-na dhammaan muuqaaladii ku jiray channelkiisa hawada ka maqan yihiin arintan sidoo kale waxaa ka hadlay Shiino Culey oo ah shakhsi caan ka ah baraha bulshada waxaana uu sheegay in dagaalka Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow uu ka warhayo sidoo kalena uu sheegay in uu ka odayeyn doono haddaba waan arki doonaa kaalinta uu qaadan doono Shiino Culey balse waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan la gareysaan warbixinada kale ka soo kordha arintaasna bartan ayaan kula wadaagi doonaa si share gareeya muuqaalka oo asxaabtiina la wadaaga mahadsanidin